sheekh yaxya binu mucaad buu ahaa muxadisiintii buu ahaa taabiciinta markuu dhintay ayaa manaan baa lagu arkay manaan dadkii wan wanaagsan oo is arkayeen moogtahay dadka iminka dhoofun bay ku riyoodaan dhoof isagoo baddii ka tallaaboo talyaaniga galo ku riyoon mid markaasuu anugu wallaahi waan arkay anoo yurub galo waa sii socdaaya salaama warriyadaad aragtay ma run baa dee wixii maskaxdaada ku jira unbaa habeenkii shayddaanku kaa soo dhex saaray dadkii wan wanaagsanaa jannaday arkayeen oo qiyaamahay arkayeen oo ilaahay wejigiisay arkayeen culammada qaarkood rag baa ilaahay daatadiisa arkaya habeenkii markay seexdaan rag baa habeen walba nebi maxamed la kulmaya calayhi salaatu wasalaam yaxya binu mucaad baa ka mid ahaa markuu geeriyooday ayaa manaam lagu arko lagu yidhi yaa sheekh yaxya nin waacida oo muxadisa oo zaahida oo ummaddu jeceshahay baad ahayde maa facala allaahu bika maxaad rabbigaa kala kulantay noo sheeg baa lagu yidhi markaasuu yidhi fudixtu waa ku fadeexadoobay buu yidhi banka qiyaamaha oo ilaahay baa iigu yidhi soo qabta yaxya ii keena waa lay horgeeya ilaahay markaasaa ilaahay igu yidhi shaykhaagan xun maanta camalka aad agtayda soo dhigatay eed isleedahay waad ku badbaadaysaa sheeg baa laygu yidhi buu yidhi markaasaan idhi yaa rabbi 36 xaj ayaan carafa joogsaday oon agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63,000 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa laygu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan is idhi dee camalkee kaloo sheeganba labadii camalee islahaa waad ugu rajo fiicanta waa 36 xaju carafa istaagay iyo 63,000 oo khatmata alqur'aana intiiba markii laygu soo celiye layidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadanba hee adigaan kuu imide bes waxaan garanayay inaan u tegaya rabb kariima ghafuura shakuur raxiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaadkaa leh inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imide bes markaasaa ilaahay ku yidhi haddaad ii timidee waa kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilaahay baan jannada ku galee dadka u sheegay buu yidhi haddii waa taabiciintii waa zuhaadii waa muxadisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanaya maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi innagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adragtu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buuhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buuhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay hadu toobadkeeno zaman adag baan ku jirnaa zaman adag muslimiinta waxun baa ka sii dhacaya muslimka maanta mar iyaku laysku diro mar iyaku ay iscaayaan iyo mar iyaku ay isdhammeeyaan waabaan ka sii xag jirnaa inakuna soomaali haddaan nahay wixii dalkeenna 40 sano ka hor aan ku baabi'innay ayaa ilaa iminka dalkeenna iyo dadkeenna ka dhex socda qabyaalad soomaali diintiisu waa maxay waa qabyaalad